halkani waa bartamaha magaalada caasimadda ah ee Hargeysa waxaana hadda ka socota saawad arkaysaanba Allah u naxariistay aaska Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir oo shalay galabtii ku geeriyooday ama cabaaro makhribiyadii magaalada caasimadda Hargeysa dadweyne aad u tiro badan ayaa ka soo qayb galay aaska sidoo kale waxa halkan ku sugan guud ahaanba madaxda Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi saawad arkaysaana halkani waa afaafka hore ee tiyaatarka magaalada Hargeysa waana bartamaha magaalada caasimadda Hargeysa saawad arkaysaan waxa ka soo qayb galay halkani oo ku sugan dadweyne aad u tiro badan iyadoo oo ay goobtani tahay goob aad iyo aad u xiriiri ah tirada dadka ka soo qayb galay aaska oo aad u fara badan wufuud gobolada dariska ah ee Soomaaliland ka kala yimid oo isku jira madax iyo madax dhaqameed ayaa ka soo qayb galay aaska oo la filayaa inay halkani kelmado ku aadan taariikhdii suldaanka ay ka jeedin doonaan haddii Ilaahay yiraahdo sidoo kale waxa la rajaynayaa in isla goobta uu aasku ka dhacayo maanta lagu go'aamin doono suldaanka bedeli doona saldalada faca weyn ee uu ka geeriyooday Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir Allah u naxariistee waxa idila hadlaya Khalid Fodadi oo idinka soo hadlaya goobta uu ka dhacayo aaska Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilqaadir ماشي وعليا أو غير